kadib hadal badan waa la yiri waa la sheegay xisbiga taariikhdiisa hogaamiyayaashii dhammaan waxaan rabaa marka halka ka salaamo ugu horeyn gudoomiyaha laanta Uganda Abdirashiid iyo dhammaan mas'uuliyiinta meeshan joogta haweenka dhalinyarada dhammaan salaan kadib waxaan ognahay markii la asaaso xisbiga adduunka inta badan waxa la saaraa xooga kambeynada siyaasadda iyo waxa xooga la saaraa sidii loo hanan lahaa voters ama codbixiyayaal laakiin xisbigan UPD wuxuu rabaa inuu ku soo kordhiyo barnaamijyo cusub oo ah xisbiga in la helo macnaha qayb qaabisan waxbarashadii iyo in la dhiso dhalinyarada waxaan ognahay waddankeena waxaa ku badan haddii macnaha qiyaasaad la fiiriyey oo hay'adaha caalamiga ay sameeyeen waxbarashada waxa waaye mid hooseyso dadka xataa macnaha ma la siiyo tareenino iyo waxyaabo badan marka waxaan rabnaa in aan isku dayno laanteenan in aan sameeyno tareenino dhalinyarada jooga Kampala iyo Uganda dhan gobolada in aan siino tareenino quseeya sidii loo dhisi lahay ardayda macnaha laga dhisi lahay xagga waxyaabaha ay bartaan ama in la siiyo waxyaabo ku saabsan wacyigelin xagga axsaab maxay tahay see loogu biiraa axsaabta maxay qabtaan marka xisbigeenan waxaan rabnaa marka inaan ka dhaadhicino bulshada kaliya inaysan ahayn in aan ka raadinayno cod iyo inay taageero nasiyaan waxaan rabnaa marka inaan ku soo kordhino ayaga naftirkooda inaan ku celino xisbiga dad waxa ku jiro aqoon-yahaniin ah sidoo kale waxaan ognahay xisbiga dadka aasaasay inay yihiin dadkii aasaasay waxbarashadii Soomaaliya markay burburtay kadib marka in aan ku dhiirigelino dhalinyarada macnaha in ay ka soo qayb qaataan xisbiga annagoo dhisayno tayadooda waxbarasho marka insha Allah taala waxaan ballan qaadaynaa xisbigeenan laanteena qaybtaan ah in aan dhalinyarada ka dhisno dhankaas khaasatan anigoo ah qaybta oo waxbarashada waxaan isku dayi doonaa inaan dejiyo curriculum ama barnaamijyo tareenino ah kuwaasoo quseeya in dhalinyarada wacyigooda la dhiso dhanka waxbarashada iyo dhanka sida xisbiyada xisbi wuxuu yahay xisbi sida loogu beero axsaabtaas kala duwan sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka dhaadhicino aaraada xisbigeena waxyaabaha ay ku dhisan yihiin marka insha Allah taala inaan sii dheereeyo marrabi hadalka waxaan ku soo gabagabeynaa in macnaha aad naga saacidin macnaha hadda waxa jooga dad mas'uuliyiina meeshan inay naga saacidaan inay nagu soo kordhiyaan aqoon-yahaniina oo naga kaalmeeya dhankaas waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh